asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. inti waxaan oo wanaagsan asxaabta meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga. maanta barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa sida alaababa nooga barateen Human Resources. haddii aad rabto inaad ku guulaysato Human Resources, shahaado kaliya kuguma filna. HR-ta waa xirfad ku dhisan aqoon, akhlaaq iyo hab dhaqan shaqo. xirfadaha ugu muhiimsan ee HR-ta wanaagsan waa marka koowaad isgaarsiinta cad. HR-ta waa inuu si xirfad leh ula hadli karaa shaqaalaha iyo maamulka labadaba. marka labaad dhegeysi iyo faham. shaqaaluhu mar walba talo iyo cadaalad ayuu raadiyaa, ma ahan cadaadis. marka saddexaad kalsooni iyo sir ilaalin. HR-ta waa inuu noqdaa qof xogta shaqaalaha lagu aamini karo. marka afraad xalinta khilaafaadka. goob shaqo muran la-aan ma jiro. HR-ta guulaysta waa kan si degan, cadaalad leh u xaliya dhibaatooyinka shaqaalaha. marka shanaad nidaam iyo mas-uuliyad. HR-ta wuxuu la shaqeeyaa waraaqado, dad iyo sharciyo. dhammaantoodna waxay u baahan yihiin nidaam. si kooban haddaan u yiraahdo, HR guul laguma noqdo magac keliya. waxaa lagu noqdaa xirfad, dabeecad wanaagsan iyo kalsooni. haddii aad xirfadahaani dhisto, HR-ta waxay noqon kartaa mid ka mid ah xirfadaha ugu qiimaha badan noloshaada. haddii aad ka heshay barnaamijkani, si aan ugu kulanno barnaamijka xiga hadduu allaha idmo, fadlan like, subscribe garee, followna isoo dheh. mahadsanid.